marka in aad nagala soo qayb gashaan aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa weliba dadkii ay qusaysay oo laga rabay in ay hirgeliyaan siyaasadda yareynta khataraha Soomaaliya. Waxaa kaloo aad ugu mahadsan hay'adda maareynta musiibooyinka iyo dadkii la soo shaqeynaya hay'adihii la soo shaqeynaya wax badan arrintan kala soo shaqeynaya in wadanka uu yeesho qaab ama siyaasad loogu jawaabo kabacdina macnaha lagu dhaqo oo laga hirgeliyo si loo yareeyo khatarahan iska soo dabalaalaabto markasta wadankeena. marka waxa la isugu yimid meeshan waa cilmi isweydaarsi iyo sidii loo dhaqangelin lahaa arrintan ku saabsan maareynta musiibooyinka siyaasadda laga yeelanayo wadanka guud. marka waa mahadsantihiin waxaa nala jooga macnaha mas'uuliyiin يعني dowladda Soomaaliya ka wada socda oo hadda aniga garbahayga fadhiya iyo gobolka Banaadir oo nagu soo biiri doona ayaga laftigooda. gobolka Banaadir waa muhiim waana meel hadda dad badan ay ku nool yihiin waana meelaha hadda lagu soo qaxo. hadda wadanka Mareykanka abaara ka dhacday sanadii hadda la soo dhaafay dhowr mar oo isku xigta laakiin wali ma maqashan qof abaar u dhintay Mareykanka ma maqleysaan. laakiin abaara waxa ka dhaca aad iyo aad u xun sida gobolkan Texas oo kale aad weyn ayaa waxa ka dhaca roob la'aan biyo la'aan dadkii dhibaata soo food saartay masana hal qof kuma dhinto hal qof isbitaal looma geeyo see ku dhacday arrintaas sababtoo ah waxay samaysteen nidaam iyo qaab ay uga hortagi karaan marka abaartaas oo kale ay dhacdo in ummadda ay helaan biyo inay helaan nolol kale oo ayaga difaacaysa noloshooda. beeraleydoo kale markii dhibkaasi dhaco waxaa la sameeyaa mucaawino degdeg ah lala soo gaaraa beeraleyda oo ay kaga soo kaban karaan inta abaarahaas jiraan. dowladda la soo gaarta maaragtay ii sheeg mucaawino la soo gaarta dadka shacabka ah oo ereyada degan waxaa loo qoraa lacagaa loo qoraa ayagu wax ku soo iibsan karaan inta dhibaatadaas ay jirto. mucaawinooyin kala duwan oo noocaas loo sameeyaa. marka labada arrimood waa inay iswataan in ka hortagga masiibooyinka ay noqoto horta wax joogto ah in abaarihii lagu talagalo in imaan doonaan in fatahaadii lagu talagalo in imaan doonaan in dagaal dhici karo oo lagu talagalo. talagalkaas wuxuu keenayaa meeshii abaaruhu ka dhacayaan waa la yaqaanaa iyo dadkii inay soo qaxaan markii abaari dhacdo sayna arrintaa u dhacin marka waa inaan helnaa qaab meelahaas ama ceelal ama marka roobka oo biyaha maaragtay inaan macnaha isla markiiba biyihii ayna ku shumin maaragtay meel cadlaa oo biyihii ay yeeshaan meel lagu kaydin karo. waa in macnaha aan ogaanaa waxyaalaha fatahaadda keena. waxaad ogaatiin dalkan markii 91dii burburka ka dhacay oo la wada yaacay dagaalo dhaceen waxa waay injiya buuxdi waxa la dhihi jiray ADC buuxdi dadka oo dhan waxa waay baqaaradaas la bilaqsaday ilaa muddo 91dii waxaas lagu moodi keedkii dalka yaalahay haddii markaas keed ba aan lahayn dadka ayaga iscuni lahaa dagaalna ku dhex jiro. policyga clearly inay dhahdo the state should take the responsibility. hadda waxaan aragnaa UN agencies and NGOs take the responsibility. markaad laha bay daba tagnay the community were saying unfortunately annaga ay support garayno the second thing we see NGOs oo ama UN. marka waxaan arkaysaa in dawladdiina aqoonsanaanteeda ay ka baxsan tahay. marka at least in la bush gareeyo meelaha dawladda ay haysato responseska haddii xataa dawladda capacitygeeda aysan lahayn in through the government lagu sameeyo. I know a lot of resistance baa ka soo baxay but there are several countries oo laga sameeyo and it really works well. marka state responsibility-ga in marka ugu horeysa la xoojiyo clear division of roles and responsibility inay jirto. wixii oo ay wasaaraddan qusaysay planning-ka wixii qusaysay inay wasaarad kale ku dhigin wasaarad kale wixii qusaysay wasaaradda humanitarian-ka inay saqaad u jiro clear guidance of roles and responsibility. DM inay base ku noqoto local risk assessment and capacity responses kala sameynaya hadda proposals la soo design gareeyay miyaa mise wax quseeya local risk assessment xoogan oo la sameeyay. marka waxyaalaha ugu weyn ee xoojinayso policyga waxaa ka mid ah inay dawladda u baahan tahay inay hadda its own data ay soo aruurso. waa arrintu ay diirsho ka hadlayo kale biyaha waa in marka hore la helaa responses si loo sameeyo ceelal fiican loo sameeyo maxaa horta na haysta in la ogaado. marka most of the things of policy guide guidance waxa way if you don't have data
waa you're vulnerable alaaba markaas vulnerable noqonaya adaa wax lagu sheegaya anaga waxaan nahay group 1 baan nahay marka policy-ga iyo structure-ka nasiib u yeelanay sida idinka waxyaabo kale nasiib ugu yeelateen markana waa iska kooban yahay ma fara badno laakiin wax nuxur la ayaan ka raacnay in sodma loo bedelo agaasin hoostaga wasaaradda koowaad wasaaradda go'aanka koowaad aan qaadanay waa yani hay'adda maareynta musiibooyinka in loo bedelo agaasin hoostagaya wasaaradda oo director isu bedesho meeshii ay agency ka ahayd taas marka waxaa ka ratibmay in dhammaan qodobka labaad maamul goboleedyada waddanka ka jira laga sameeyo wasaarado wata magaca wasaaradda noocyada marka halisaha ka jira waddankan waxaa zero draftigu soo koobay ilaa 7 hazard oo halkan ugu cad waraaqihii macnaha aragteen 7 waxaan ku kordhinay 2 kan ugu horeeya wuxuu yiri hydrometeorological hazardska oo floodska iyo droughtska ay macnaha ka mid ka ahaayeen floods oo qalalan uu yiri plain flood marka floodkii waxaan niri riverine flood iyo flash floods aan u kala saarnay detailska oo macnaha floodka hoostiisii ku qornaa oo sharaxaad ahaa wuxuu koobay kaliya Shabelle River oo uu aad ugu dheeraaday as if Shabelle River ay ka dhacaan macnaha floodska kaliya marka Juba inuu macnaha uu it has macnaha technical advisor-ka iyo macnaha raba inuu gareysto iyo apigit labadaba marka Jubana waa in macnaha ku xisaabtantaan inuu ka dhaco macnaha floodka waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka shirkan ku saabsan siyaasadda qaran ee maareynta masiibooyinka gobolka wuxuu ka qaadan doonaa doorka ugu aadan arrimaha yareynta khataraha marka muhiimadda ugu weyn oo maanta shirka annaga aan ka tagayno wuxuu yahay siyaasadda guud ee qaran ee arrintaas ku saabsan ka bilaabanaysa heer gobol ku dhammaanaysa heer tuulo